waxaan salaamayaa madaxda halkan isugu timid ay ugu horeeyaan wasiirada dawladda aan wada shaqayn jiray xildhibaanada maarayaha cusub madaxda kale dawladda shaqaale weynaha madaxda dekedda ee waaxyaha iyo dhammaan shaqaale weynaha iyo muruqmaalka dekedda berbera oo maanta halkan nasiib wanaag alxamdulillahi rabbilcaalamiin shaqo badan ka bacdi aan xilkii shaqo ee dawladda iyo qaranka aan u hayay aan ku wareejinayo axmed yuusuf dib waxaan leeyahay axmed yuusuf soo dhawow shaqadan waa shaqadani waa shaqo aad taqaano aan kugu cusbayn hore halkan madax baad uga ahayd keliya wuxuun baan dul mari doonaa intii shaqadaad ka maqnayd wixii hawle qabsoontay iyo wixii iminka ku yaala ee arrinahee shaqada ku saabsan iyo halkaas ka bilaabaysa iyo wixii dambe adaa hawshaada wadan doona insha allah waxaa xusid mudan ala 4 sano iyo waxoogaa baan jooga halkan iminka dekeda doorkan waxaa alxamdulillahi rabbilcaalamiin intaaba shaqada dekeda dee meel bay marayso iyo howlaha qaranku meel bay marayeen intaa runtii shaqo badan baanu qabanay annaga oo iskaashi dekedeed ku hayna meesha oo shaqaale weynaha iyo muruqmaalka waxaanu dhisnay dhismo badan oo dekeddu ay leedahay dhismaha dadku waxaa u yaqaanan daaraa la dhiso maahe dekedaha waxa dhismayaasha dhulka ka hooseeya ayaa la dhisaa infrastructure baa la yidhaha dhismahaasi waxa uu iminka qaadaa ilaa 5,000 ilaa 6,000 oo container wajaalaan u bixinay xagaa iyo jiilaalba oo ka shaqaynaynay wax hore u jirana may ahayn marka axmedo aan ku wareejinaya arrinkaa waxaanan kula talinayaa inuu halkaa ka sii wado waxyaalaha kale runtii mudan wataa la yidhi hadalka hala soo gaagaabiyo laakiin waxyaalaha kale runtii mudan halkan waxaa ka mid ah shaqada tacablalinta dekeddu intaa muddadaas runtii 2 sannadood ugu dambeeyey weliba sanadkan iyo sanadkii hore aad bay u korodhay containerada 2014 degay waxay ahaayeen 9 TU 2015 waxay ahaayeen 36 January ilaa Julyna waxay ahaayeen 36,000 ay sanadkii hore ahaayeen sanadkana ilaa July waxaan rognay 1,100,000 oo tan iyo 33,000 oo container marka sanadkan akhirkiisa waxay noqonayaan 66,000 oo container ya marka waxa weeyaan masha Allah taariifadaha waxbaanu ka saxnay sanadkii horaantiisii madaxweynuhu aad buu ugu mahadsan yahay arrinkaa waayo waxay taraysaa horumarka iyo waxqabadka dekedda iyo shaqaalaha mushaharooyinkooda ayay aad wax uga taraysaa intii aad shaqada ka maqleen 3 jeer baan mushaharka kordhinay weli laakiin waa iska hooseeyaa 3 jeerna marka ugu yar 50% baan kordhinay shaqaalaha ku jooga roolka kugu jira waa 850 qof kuna mushaharka dadka qaataana waa 200 qof aan kaloo kugu wareejinayaa geelayaashii A iyo B Stevadorski Barakatali Gelchidki Hoostgale Watchman xeebiyaal saaxil garbage berbera mooring group iyo caws gogol caws gogolka waa bedding grasska
oo 10 qaybood oo qodobada nooc uga shaqaysto dekeda ayaan kaloo kugu wareejinayaa. waxaan kaloo kugu wareejinayaa lacag ay dekedu leedahay oo account security fund ku jirta. account-ka waxaa yaame Cismaan Timoweyne xisaabi iyo Cabdiraxmaan aar 3 baan ku hayn $4,900,000 يا $900,000 عكتا صحيح هذا لوضع نبقى كمسؤولة مكانه مش واقع بحي قيبتك اللي account holder كلو نقول دونا أحمد يوسف وحنا والله عكتا اللي قلت له قال لي تاج عن حلنا واقعا تاجا ويساقا أيانو كماليدي ترتمي كحولاني oo insha Allah isagana waxaan isku talinayaa in aad culays loo saaro sidii uu ima lahaa bisha ilaa 2 bilood soo socda. waxaan kaloo kugu wareejinayaa free zone-ka dekeda oo tacab fara badan iyo hawl fara badan iyo qaxar fara badan laga soo qabsaday. dhulka dad badan baa sheeganaya oo dhulka wax ka sheeganaya sheegashada ka sokow dhulka baaqigii waa dhul aad u weyn oo dee cid walba anfacaya. sheegashadana waa dawladdu ba xalli doonto wax mushkilad ay leedahay haba yaraatee ma jirto. xisaabta banka halkay marayso waxay loo sheegi doonaa xisaabiyaasha qalab dekedeedoo oo gaaraya 4 register container buuxa qaada empty container handler oo hala 7 trailer 3 maafi iyo koox 6 forklift ayaa isagana aan ku wareejinaya. dhismaha barxadda labaad ee madaxtooyada ka dambaysa ayaa iyaduna jirta aan doonayaan kugu wareejiyo. waxaan kaloo doonayaan kugu wareejiyo documentiska BB1 ay leeyihiin oo ilaa imika wixii halkay wax ayaan ah oo xafiiska yaalin. waxaan kaloo kugu wareejinayaa 2 consultant document code oo ah Niras iyo Nathan. waxaan kaloo kugu wareejinayaa heshiiska Ethiopia iyo Somaliland ay soo wada galaan aan soo saxnay March 31 March oo aan filayo inuu heshiis taariikhi yahay oo heshiiska taariikhigaana insha Allah taala hawl fara badan ku soo qabanay. waxaa jira heshiiska fulintiisu waddankeena gudihiisa wax ku hawl yar ma waxa laga yaabaa inay caqabado kaaga yimaadaan laakiin waa heshiis loo dawlado galaan oo dhammaystiran insha Allah Allah ku safro taas waxaan intaa u dhaafayaa. horta waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo runtii chance ka shaqeeya maanta aan ka hadlayo siiyay oo si aad u wanaagsan oo madax banaaniyana aan uga shaqeyn jiray dekeda oo runtii suurto geliyey umalaymayo inaad wada aragteen horumarka dekedeeda halkan aan imika ka sheekeynayo suurto geliyey ogolaashihiisa. waxaan kaloo mahadnaqayaa marwada oo madaxweynaha markaan dhaqsay isu weyno hawl fara badan oo taakulayna iyo fududayna barnaamijyada dekeda inay socdaan iyo shakhsiyanba iyo wixii barnaamijyada kale aan ka wada shaqayn jirnay iyadana aad si muddo kale aan u soo wada shaqaynay.
waxaan kaloo mahadnaqayaa wasiirada ugu horreeya wasiirkaygu maxamed xaashi iyo raggii ka horreeyay ee ka tegay shaqadaba iyo dhammaanteed dowladda madaxda gobolka meeyarkii ma joogaan malaynaya iyo barasaabku ma malaynaya iyo shaqaalaha dowladda taas waa mahadnaqay bayt keliya maan ku noqonayaa hadalkayga waan dhamaystay waxaan jeclaan lahaa inaynu soo eegno uga jaale haddii alayaa markaynu dhamayno xil wareejinta bayrka xisaabaadka ismaan baan ka qaadan doonaa oo miiska la soo saari lacagta ku jirta iyo kharshiyaadka taagan iyo waxaas mar keliya maan ku noqonayaa waxaa laga yaabaa dad fara badan baa shaqada dawladdu ka tegisteeda iyo gelitaankeedana waxaa keena maamulka ahay ka tegisteedana waxaa wadno dawladeedoo shaqadii way kaa dhammaatay hebel ku wareeji nidaamka dawladnimo ayay ka mid tahay solo waxaa keliya oo laga yaabaa ina ay isweydiisaan ama dadka qaar ay maqlayeen barnaamijka ku saabsan cali waxbuu diiday amardiiduu sameeyey saasuu sameeyey wax aynkaasa barnaamijkaasi barnaamij daneed oo arrin dawladdu leedahay oo qaranka ka dhexeeya oo nin walba fikirkiisa iyo aqoontiisa uu ku hagayo ayuunbay ahayd wax difference ahoo anaga iyo dawladda la dhex galayna ama dee dawladdaaba loo shaqaynaya madaxweynuhu ka hor shaqaynayay na ma jiro barnaamijkaasina barnaamij ay dawladdu gacanta ku haysto dantaas sanay ku wanaagsan tahay aniguna aan ka ahaa farsamo yaqaan iyo sidana imika la helayaa ayuunbu ku saabsanaa wax kaloo dhibaataa iyo nin kibrayo shaqada ka kibrayo dawladdii ka hor yimidna ma ihi saas un loo hagaajiyun baan lahaa anaa saasay ila muuqanaysay nin mucaaradayo dilaac kale u muuqday oo meel kale u hanqal taagayna maan ahay laakiin waxun baanu ka wada hadlaynay arrin daneed oo rasmiya oo waaqiciya oo lasoo food saaray oo aynu khayrkiisana rajaynayno insha allahu tacaala waxaanan hadalkii waan badiyaan malaynayaa insha allahu tacaala aad baa umaadsanti way dhegeysateen waxaan doonayaa in xisaabaadka halkan la keeno amba iska hayaba goodhabayn xisaabaadka waxaan ku wareejinayaa dhinacan laga soo wada maro xigeenka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وحقبت في دكتة يوم إتيان شغلين اللي بدك على أي شيء مرة وحندون يعني وكل ينان كهضلو إنان أسود وينيو وشغادي إن بدن عن شغليني isbedel kana aanan ku xumayn waxaan doonayaa taarto inaan caddeeyo waa qodob kale waxaan doonayaa inaan u mahad celiyo jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo oo markii hore xilkan ii magacaabay imikana shaqo ka bedelka igu sameeyay waan ku qanacsanahay kuna faraxsanahay horumarkii dekada waxba ka oran maayo Maareeyo Cali ayaa hadlay waxaan doonayaa kale inaan u mahad noqo shaqaale weynaha dekada Berbera oo si mug iyo miisaan leh intii anigu maareeyay ku-xigeenka dekada Berbera aan ahaa ila shaqeeyay gacan badan siiyay anoo yar habashabashlaabaan oo aan dekada aqoon badan u lahayn laakiin kastamada ahaa gacantii ay siiyeen aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa ilaahay khayreedii ku bedela baan leeyahay madaxdii ee gobolka iyo degmada aan wada shaqeynay iyo kastamadana aad iyana ugu mahadnaqayaa aad waxaan ugu soo dhaweynayaa maareeyaha cusub Axmed Yuusuf Dirir oo aanu muddo sanadii dheer wada shaqeynay يماري كحيين كان يبدل عبد الله حسن متان وأهني نادر كيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته